waxa ay ku qaadatay sannado inuu helo shaqo uu ku badbaadiyo noloshiisa kuna bedelo balse nasiib darro waxaa loo diiday in ka badan 10 shaqo oo uu gudbiyo codsiyadooda. ayuba waxaan oran karaa intaan shirkadda asaasin in ka badan 10 jeer waxaan abaalgareeyay shaqooyin waxa xusid mudan dadku shaqooyinkooda ka xishoodaan shaqada ugu hooseysan abaalgareeyay waxay ahayd darawal baabuur ama injineer ah runtii waan waayay. hadda waxa la gaaray markii uu wajihi lahaa Khalid go'aan adag kaasi oo ah furaha mustaqbalkiisa waxna uu qaatay go'aankan oo ah inuu ku shaqeeyo bilaa lacag si uu u helo khibrad uu ku gaaro halka uu u socdo maadaama aanu ku guuleysan shaqooyin tiro badan oo codsiyadooda uu xareeyay. sanadku waa 2017 waxa la gaaray xilligii uu ka rumayn lahaa hadafkiisa kaasi oo ah inuu samaysto shirkad u gaar ah si uu shaqo abuur ugu sameeyo dhalinyarada la kulmaysa dhibaato haysatay isaga sanado badan sidoo kalena uu hal abuur cusub oo dhanka dhismaha ah ugu soo kordhiyo dalkiisa. waxaana shaqaalaha haatan lagu bilaabayaa shirkadda uu Khalid rabo inuu asaaso ay yihiin 2 qof oo kaliya balse hadda 2022 shaqaalaha ka shaqeeya shirkaddan uu asaasay Khalid ee dhanka dhismaha oo lagu magacaabo Som Property ayaa waxa ka shaqeeya in ka badan 100 qof oo badi ah dhalinyaro kuwaasoo isugu jira injineero iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dhismaha. waxaana rumooday rajadii Khalid uu qabay sanado ka hor. fariintan ayaa ah mid uu la wadaagay Khalid dhalinyarada rabta in ganacsiga iyo hadafkooda ay guul ka gaaraan. marka yoolkaagu yahay inaad meel gaadho waad gaaraysaa sababtoo yoolkaygu wuxuu ahaa inaan bedelo qaab dhismeedka magaaladeena Hargeysa tiina wax moodaa inaan ku guuleysano 199 shirkad kasta maanta wax dhistaa waxay ku dayataa Som Property si ay wax u dhisto mas'ka qurux badan inay dhisto halkii awal shalad wala 4 sano oo soo eegay la dhisi jiray maanta qof walba wuxuu ka fikirayaa wixiisa inuu wanaajisto qurux badnaysiisto taasina waxaan leenahay mid ka mid ah yoolkii aan lahayn oo gaarnay dhalinyarada waxaan leeyahay inay jabina yoolkiina way gaaraysaa. Khalid ayaa qaba in arrintan ay tahay ta u sahashay shirkadiisa dhismaha inay gaadho guulo waaweyn sanado gudahood. waxaan oran karaa hal shay baa ii sahashay in magaca Som Property uu halkan ku gaadho waa 2 arrimood mid waa dhisaan cusub iyo qorshe cusub aan la nimid midna waa xoogga dhalinyarta oo aniga runtii ka faa'iideystay nafsiga dhalinyarada isku tirnaya xoogga dhalinyarta iyo waxbarashadooda. shirkaddan dhanka dhismaha ee Khalid sameeyay ayaa waxay haatan samaysay sanado gudahood mashaariic aad u badan oo dhanka dhismaha ah guud ahaan magaalada Hargeysa. arrintan ayaa mid la yaab ku noqota macaamiisha marka ay la kulmayeen Khalid. waxyaalaha ayuu ugu leeyahay badan leh intaan Som Property joogay waxa ka mid ah dadku hanti badan bay ku dhiibanayaan mashaariic badan bay ku dhiibanayaan waxay dadkeenu u barteen in loo shaqeeyo cidda mas'uuliyadda haysa ay yihiin dad waaweyn dad 60 jir ama 70 jir ah marka ku arkaan adigoo dhalinyaro mulkiilihii shirkadda maamulihii guud oo dhalinyaro tiimku shaqeynaya wada dhalinyaro runtiina waan ku qancinaa mararka qaar inaan dhalinyartu ka wanaagsan tahay dadka waayeelka u baahan in loo shaqeeyo. hamiga Khalid ayaa inuu shaqo abuur u sameeyo 100 dhalinyaro isla markaasina shirkadiisa uu sameeyay ee dhanka dhismaha uu gaarsiiyo guud ahaan deegaanada Soomaalida. fariinta muuqaalkeenan ayaa daawade in haddii aad leedahay hadaf aad ka rumayn karto haddii aad samayso dadaal badan waxaana rajada hadafkaagu ay qaadan kartaa sanado badan balse muhiimadda ayaa ah samirka iyo eegista natiijada. waad samayn kartaa wax walba haddii aad aamintid ku xidhnow Ayub Show lana soco muuqaal cusub.